dalka Ciraaq iyo Lebanon ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah maamulka Israa'iil waxaana ay sheegeen in laga bilaabo maanta ay dagaal toos ah la gali doonaan Israa'iil haddii aanay joojinin faragelinta qaawan ee dalalkooda ku hayso. madaxweynaha dalka Lebanon Michel Aoun ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu isdifaaco ilaashadana xorriyadda iyo madaxbannaanida dalkiisa markii diyaarado aan duuliye lahayn oo Israa'iil leedahay ay ku dul burbureen magaalada Beirut isagoo sheegay in diyaaradaha Israa'iil ay xadgudub ku sameeyeen hawada dalkaasi. waxa uu ku sheegay in diyaaradahaasi ay ka dhigan yihiin dagaal rasmi ah oo ku dhawaaqday Israa'iil isla markaana militariga Lebanon ay jawaab toos ah ka bixin doonaan. Michel Aoun ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay looga baahan yahay in kulan degdeg ah isugu yimaadaan isla markaana arrinta laga hadlo loona ogolaado dalalka Ciraaq iyo Syria sidoo dalalka Ciraaq iyo Lebanon in ay isdifaacaan. sidoo kale baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in ay dagaal toos ah la gali doonaan Israa'iil oo ay ku sheegeen inay dhawaan duqeyn ka geysatay gudaha dalkaasi Ciraaq. baarlamaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in ciidanka Mareykanka ee Ciraaq jooga si degdeg ah looga saaro markii ay dowladda Israa'iil weerar ka geysatay gudaha dalkaasi Ciraaq kaas oo aanay ruqsad u haysanin. dalalka Ciraaq iyo Lebanon ayaa sheegay in faragelinta ay ku hayso dalalkooda Israa'iil ay ka dhigan tahay dagaal toos ah Israa'iil bilowday isla markaana iyaguna ay dhinacooda mid rasmi ah ku dhawaaqayaan taas oo ka dhigan in ay dagaal la gali doonaan Israa'iil.